بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال idilkiinba meel kasto aad joogtaan halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada qaybta labaad barnaamijka falanqeynta xogta caalamka oo si gaar ah aynu ugu eegi doonno wararkii ugu dambeeyay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale arinta ku aadan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo madashaasi ka maqan aynu ku bilownay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug iyo gobolka Banaadir ayaa ku sugan madasha shirka arrimaha doorashada la filayo in uu ka furmo sidaas oo kalena goob ku dhow waxa ku sugan wakiilada caalamiga ah madasha waxa ka maqan madaxda Jubaland iyo Puntland oo hore u dalbaday in shirka lagu qabto gudaha xarumaha ay amnigooda sugan ciidamada AMISOM balse ilaa iyo hadda ma aysan imaan xogo madax banaan waxa ay sheegayaan inay ka biyadiidsan yihiin shirka inay ka qayb galaan beesha caalamka ayaa wali dadaal wada kuna aadan in si wada jir ah looga qayb galo shirkan in ka badan 3 saacadood ayay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ku sugan yihiin halka shirka lagu qabanayo dhinaca kalena ila ka tirsan beesha caalamka ayaa xaqiijiyay in muddo 2 maalmood ah ay wakiilada caalamiga ah doonayaan inay xal uga gaaraan arrimaha ismariwaaga Soomaalida ayna doonayaan in ay maalmahaasi gudahood isugu keenaan dhinacyada isdiidan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wararku cadeynayaan in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan uuna wada hadalka 2 maalmood gudahood ku xalin doono tabashada labada maamul ee maqan talaabooyin cusub ayay wadaan wakiilada caalamiga ah xilli ay wada fuliyeen inta badan shuruudo ay horay ugu xireen madaxda dowlad goboleedyada maqan arinta siyaasadda ee ka taagan Soomaaliya ayaa ah mid dadka Soomaaliyeed ay aad dhegta ugu wada taagayaan waxaana meesha saaran masiirkii ummadda iyadoo la filayay 8 Febraayo ka hor in dalka doorasho loo jiheeyo hase ahaatee aysan dhicin siyaasiyiinta ayaa mindi ku taag wada oo iyagu danahooda ayay eeganayaan mana u jeedaan danaha shacabka Soomaaliyeed sidoo kalena waxaa meesha ka muuqata markan in faragelin toos ah ay dalalka shisheeye ku sameynayaan Soomaaliya maadaama siyaasiyiinta Soomaalida iyagu damiirkooda uu siin waayay inay isu tanaasulaan oo danta dalka iyo dadka ay eegaan taas bedelkeedna waxa markan lagu qasbayaa in ay fuliyaan waxa loo yeeriyo sidii hore u dhici jirtay xilliyadii kumeel gaarka aynu ahayn hase ahaatee iyadoo la filayay in dalka uu ka madax banaanaaday waxyaabaha ay soo yeeriyaan dalalka shisheeye ama waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa hadda muuqanaysa muddo kadib in dib loogu laabtay taasna waxa ay meesha ka saareysaa hadalkii hore u jeediyay madaxweyne Farmaajo ee ahaa in lala soo celiyay qabkii Soomaalida lagana baxay in loo yeeriyo wax bal wararkii ugu dambeeyay ayaanu si eegeynay saaxiibkay Faarax Cabdilqaadir ayaa warbixin kooban arrimahan inooga diyaariyay waa maalmo kale oo siyaasadeed oo ku saabsan arrinta doorashooyinka Soomaaliya muddo ka badan sanad ku dhawaadaya dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu isku fahmi laayihiin dardargelinta hanaanka doorashooyinka in ka badan 8 bilood ee la soo dhaafayna waxaa taagnaa tuhumada ay kala qabaan dhinacyada ee ku aadan meelmarinta heshiiska ay gaareen bishii Sebtembar ee sanadkii la soo dhaafay 2020 qodobada ka soo laabtay fulinta heshiiskaas oo dhammaantood ahaa kuwa dowlad goboleedyada qaarkood ay cabasho ka keeneen ayaa dib loo eegay magaalada Baydhabo ayaana guddiyo farsamo heshiis kaga gaareen laakiin isku imaantin guud oo dhinacyadu ay yeeshaan ayaa qiilqiil galay wixii ka dambeeyay 8 Febraayo xilligaas oo u dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka sii horeeyay muddo dhamaadka xileedka golaha shacabka oo isugu jira baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare gudoonkooda iyo xubnahana uu ka dhacay 27 Diseembar kama hadlayno sharciyada xafiisyada ay ku fadhiyaan xubnahan laakiin waxaanu eegi doonaa tubta doorashooyinka Soomaaliya kulanka cusub ee hadda lagu dhawaaqay iyo ka baaqsashada cid gaar ah inay jirto inay ka maarman karto sida muuqata kulanka waxa qabanqaabiyay isla markaana aad uga shaqeeya wakiilada jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka Donnie Mamoto sida aan horey u sheegnay mar kalena uu qiray madaxweynaha Puntland Siciid Dani waxa magaalada Muqdisho xubnaha Puntland iyo Jubaland ay ku yimaadeen war uga yimid dhanka beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka iyo qaramada midoobay ujeedka loogu yeerana waxa uu ka qaybgalka kulanka ku saabsan tubta doorashooyinka madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cilaamiyay inuu maanta Muqdisho ka bilowdo kuna 2 maalmood socon doona kaasoo dhabaha loogu xaarayo hanaanka doorashooyinka ee dalka
iyo fulinta dhammaan qodobadii lagu heshiiyey. sida muuqata shirkaasi waxa uu muuqdaa mid dib u dhac uu ku imaan karo saacadaha hore maadaama weli dhinacyada qaarkood ay tabasho muujinayaan. arrinta ammaanka oo walwal uu ka qabo madaxweynaha Puntland waxa ay AMISOM u sheegeen in iyagu ammaanka sugi doonaan isla markaana dhammaan ilaalooyinka dhinacyada marka laga tago ilaalada hubka fudud ku hubaysan ay tagi doonaan gudaha xarunta kulanka lagu qabanayo. taas laakiin Puntland wali uma aragto inay tahay fursad weyn, waxaana madaxweynaha Puntland uu sheegay inay ku wareegsan yihiin ciidan inkastoo warar madax bannaan ay sheegayaan in warkaasi aysan waxba ka jirin. dhammaan tallaabooyinka kala duwan ee geedi socodku waxa uu ku wajahan yahay wakiilada caalamiga ay ka shaqaynayaan in dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ay kulan wadajir isugu yimaadaan. kulanka waxaa la filayaa inay hadal ka jeediyaan xubno aan horey muddooyinkii u dambeeyay aysan isku wanaagsanayn madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waana xubnaha hogaaminaya midowga musharaxiinta labadii madaxweyne ee hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. tallaabadaasi gudaha mucaaradka ayay ka caraysisay oo doonaya qaarkood inay yeeshaan hadal jeedinta iyo ka qaybgalka kulanka. sida ay tilmaamayaan wararkii ugu dambeeyay kulanka waxa wadajir uga qaybgali doona dhammaan cid kasta oo lagu casumay oo ay ku jiraan madasha midowga musharaxiinta xubno ka mid ah iyo waliba sidaas oo kale bulshada rayidka. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa yeelan doona kelmadda u dambaysa ee xiritaanka kulanka, waxaana ka hor la saxiixi doonaa ama la baahin doonaa war-saxaafadeedka rasmiga ah ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen. beesha caalamku waxay yeelan doontaa korjoogtaynta arrinta doorashooyinka, waxayna qaadanaysaa door xoog leh oo ku wajahan sidii doorashadu waqtigeeda lagu heshiiyo ay ugu dhici lahayd. guddiyada farsamada oo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ayaa dhowaan ku kulmay magaalada Muqdisho. sidaas oo kale xubnaha Galmudug ayaa ku maqnaa dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Soomaali Galbeed, halkaas oo ay kaga qaybgalayaan kulan looga hadlaya xaaladda ammaanka ee xuduudda labada dhinac. sida muuqata xaaladdu hadda waxa ay u janjeersatay xagga doorashooyinka iyo dhinacyada Soomaalida la isku khasbo, waxaana dadku si weyn ay u sugayaan waxyaabaha khasabka ka soo bixi doona maadaama hogaamiyaasha Soomaalidu ay gudahooda isfaham keeni waayeen.